waxaad maqlaysaan wiigan innagoo geeska africa uu yahay maanta marka leega afrika gobolka ugu liita dhinaca dhaqaalaha dhinaca cimilada siday u saamaysay geeska afrika cimiladan isbedelaysaa gobollada kale o dhan way isaga ugu darantay waxaa ka socda xasilooni daraan meel badan ka jirta dadka geeska afrika ku dhaqan guud ahaan waxaa ku waajiba inay si wada jira nabadda iyo dhibaatooyinka uu keenay isbeddelka cimiladu iyo abaaraha inay aada iyo aada isu dhowraan oo iskaashi raadiyaan baa wanaagsan haddaynu Soomaaliland nahayna cid walba waxaynu doonaynaa inaynu horseed ugu noqono nabadda iyo iskaashiga iyo wada shaqaynta oo dhan caalamka oo dhan jaarka mid inoo dhow iyo mid inaga fogba inay noqoto Soomaaliland meel ay ka fidaan nabadda iyo iskaashiga caalamka oo dhan oo dadkanu taa fahmo oonu adduunka taa kaga noqono tusaale laga daydo haddaba wiigan dhaweyto waxaa maqlayseen intii maqashay oo miidiyaha laga baahiyay idaacadaha waaweyn dowlad goboleedka Puntland baarlamaankeedu dood uu soo dhigay oo runtii la yaab lahayd oo aanan garanaysa u timid iyo sida ay rag waaweyn oo aynu jaarnahay ay uga suurtowday oo yidhi Soomaaliland ha lagu daro liiska argagixisada golaha baarlamaanka Puntland baa laga soo jeediyey waxaanu leenahay hadaynu nahay qaranka Soomaaliland annagu waxaanu fidinaynaa in Soomaaliya nabad loo doono gudahooda ka heshiiyaan annaguna aan u ducayno colaad kama rabno halkaa ay dhigeen waxaanu annagu u dhigaynaa walaaltinimo inay gudahooda hagaajistaan jaar wanaagsan oo walaalaan ay noqono dadna aynu isugu dhownahay haddaynaan itaan wax isku tarayna inaynu isu ducayno ay ahayde lagama filayn maanta halkaa ay ka qaaday Puntland awal hore xamar way ka socotay taa iyo tul lamidi laakiin lagama filayn Puntland oonu jaarnahay oo nabadkooda noolnahay oo dad iyo dunya baan isdhex maray inay halkaa soo dhigto annagu waxaan ugu baaqaynaa taa colaad uma hayno shacbiga Puntland inuu taa qabo u malayn maayo iyo qof waxgaradi waxaan ugu baaqaynaa inuu nabadkooda noolaano laba dowlad darisa aan kala maarmay wax walba wadaaga ilaahay wada abuuray colaad gaara wada leh oo labadeennaba cadow ina wada eryanaya oo in ka wada horjeeda uu jiro cimiladu ina wada saamaysay dhulkeena abaar iyo biiraantu ku badan tahay kamaanaan filayn waxaa ereygaasi waxaan leeyahay shacbiga Puntland iyo madaxdoodaba ereygaasi meel ka dhac aan loo filayn way Soomaaliland waxaan leeyahay inagu walaalo nabad iyo wanaag baynu ugu jawaabaynaa haddii iyagu dee ay qaataan waanu ka abhinaynaa inaynu dagaal iyo ilaa heerka iyo buuq dambe midkeena ma qaadi karaynu ka dayno haddayse ka maarmi waayaan waa u toogahaynaa wax dhibaato ka imanaya taana intaasaan ka leeyahay aad iyo aad baan u hambalyeynaya ciidanka qaranka waa u mahadnaqaya inta ka soo qaybgashay dhammaantiin Soomaaliland horumar iyo insha allahu taala wanaag iyo taladeenna oo midowda oo turxaan dhexdeeda ka dhicin ayaanu ugu ducaynaynaa